Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda cakiran ee 32 xildhibaan ee lagu soo doortay gobolka Gedo gaar ahaan magaalooyinka Garbahaare iyo Ceelwaaq isagoo sheegay maanta wixii ka dambeeya inaan la ogolaan doonin in dadkaas la soo doortay ee isqabqabsiga dhexdooda uu ka jiro ay gudaha u soo galaan Golaha Shacabka go'aanna laga gaari doono inta ka horeysana aan la ogolaan doonin in halkaas ay yimaadaan gudoomiyaha ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in haddii arrin khilaaf uu ka taagan yahay ay tahay in xal loo raadiyo isla markaana aysan suuragal ahayn 32daas xildhibaan in mar kasta ay ka soo muuqdaan Golaha Shacabka iyagoo sifo sharci ah halkaasi aan ku fadhinin xildhibaanadan laga soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaare ayaa waxay kala taabacsan yihiin madaxweyne Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan oo garab ka helayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo guddiga FID iyo kuwa Garbahaare oo garab ka helaya xubno ka tirsan guddiga FID iyo waliba Villa Soomaaliya waa kan gudoomiye Aadan Madoobe oo ka hadlaya arrintan isla markaana sheegay inay tahay in maanta aysan isaga bixin baarlamaanka laakiin hadda wixii ka dambeeya aysan halkaasi imaan karin oo khilaaf geeraynayno ixtiraamayno muwaadiniinta Soomaaliyeed oo khilaaf u dhaxayn aan ixtiraamayno yaan waxaan maaragtay aan sameeynin inaan nayraano hebelka ma idan dhihin koramka sidiisa kaleba noogu buuxa koramkeena waa saxan yahay akhyaarta marka barnaamijyadaas dhibaatada dhexdooda ka taagan tahay maanta ma idin dhahayno ilaa ka meesha ka baxa ma idin dhahayno laakiin waxaad ogaanaysiin walaalayaal in khilaafkaas iyo nidaamkaas hadda meesha lagu fadhiyo in lagu sii jiro inay suurtagal ahayn waxaan rajaynaynaa inaan xalkeeda kama dambayska gaari doono maanta wixii ka dambeeyo marka la soo fadhiisanayo ay noqon doonto xildhibaanada aan maaragtay buuqiga ku jirin oo si sax arrintooda la isku waafaqsan yahay unbaa soo fadhiisan doonaa maanta wixii ka dambeeya